barashada ingiriisku waxay la mid tahay abuurista geed. Marka hore wax muuqda ma dhaco, waad dhagaysataa, waad barataa, laakiin weli kuma hadli kartid. Waxaad ku fikiraysaa inaad joojiso barashadiisa, laakiin maskaxdaadu si hoose ay u shaqaynaysaa. Xusuus ay dhisaysaa, cod, erayo iyo qaabab ay baranaysaa. Tani waa korriinka aamusan. Waxaa la dhahaa input waxay ka dhigan tahay wax kasta oo aad ku maqasho ama aad ku akhrido luqad aad baranayso. Waa sida ay maskaxdaadu luqad u barato. Waa sida ay maskaxdaadu u qaadato ama ay u barato luqad. Tusaale, markaad yarayd weliga class ma tegin, hooyada intay qalin iyo buug ku soo qaadatay wax ma qorin. Marka hadda ingiriiska aan baranayno, inputkeena wuxuu u qaybsamaa laba qaybood. Qaybta koowaad waa listening input, wada hadallada sida conversationada inaad dhagaysato, podcastyada, musalsalada ama filimada, heesaha iyo muuqaalada YouTube. Waa listening input. Midda kale waxay tahay reading input. Reading input waa akhrinta buugaag, qoraalada baraha bulshada, maqaalo iyo wixii la mid ah baa waxaa la dhahaa reading input. Processkan wuxuu dhacaa markaad wax dhagaysanayso, wax akhrinayso, weliba in yar. Waxaadna fahantaa wax yar. Taasi waa mirihii geedka. Ha isku dayin inaad degdegto, biyo sii geedka maalin kasta, xitaa haddii aysan dadku arkin inuu koraayo. Barashada luqad waqtigeeda ay leedahay sida geed oo kale.